noqota dhaqaalaba ku qabsoontay awood iyo aqoon Soomaaliyeed oo aan ciidan waxba ku darsan qodobkaasi wuxuu u baahan yahay in aad loogu fiirsado muhiimadda uu leeyahay la siiyo astaanta labada doorashadaas ay wadatay waxa weeyaan magaalada Muqdisho oo aad ugeydeen xaaladda amnisay ahaan jirtay waxaana kaga filan رئيس وزراء حمزة عبد البراء خدوده كتشيديي مداشي هيريتيج دوسا مريب oo tusaale ka dhigay in doorashooyinkii ugu dambeeyay dadkii xildhibaanada dooranayay afka iyo madaxa iyo indhuhu u qarsoonaayeen baqdin daraadeed isla mar ahaantaana la soo gaaray in daafaha Muqdisho iyo gobolka Banaadir boqolaal kun oo bulshada Soomaaliyeed ee ku noolihii ay safaf dhaadheer u galeen in codkooda dhiibtaan iyagoo aan dhuumanayn madaxa qarsanayn aan haba yaraatee wax dareena oo cabsiya ama amaan darro ah aan muujinayn ku faraxsan inay codkooda dhiibtaan ku faraxsan inay soo saaraan dadkii hogaamin lahaa ee maamuli lahaa isla mar ahaantaana doorashadaasi waxay noogu dhammaatay si nabadgelyo ah oo runtii lama soo diiwaan gelin sidii ay sheegeen guddigii doorashooyinku wax xagtina oo meeshaas ama maalintaas ka dhacay intii doorashadu socotay waa qodob labaad u baahan Muqdisho doorasho inta leeg nabadgelyo aanina laga qarsanayn dadka doonistooda wax sahlan ma ahayn haddaan sii wado hawsha tan amin gaaban baa la joogaa waqtiguna waa dheeraanaya waxaan leeyahay madaxweyne dadaalkaaga bulshada Soomaaliyeed waa ku ogtahay waana ku garab taagannahay adiga iyo xukuumadda dan qaran ee hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre garabkiina aanu nahay gaashaan baan idinku nahay horumarka aad la doonaysaan Soomaali in la gaadhana wax kasta oo ay nooga baahato waa u horeynaa ida mal insha Allah ta'ala dawladda waqooyi bari maxay u taagan tahay in halkan la isugu yimaado maxay reer waqooyi bari uga dhigan tahay dawladda waqooyi bari waxay u taagan tahay Soomaalinimo barxala midnimo aan qaybsan lahayn nabadgelyo aan cunfi lahayn dadka iyo dawladda waqooyi bari waxay u baaqayaan Soomaali oo dhan midnimadaas Soomaalinimada iyo nabadgelyo say sheegtay xildhibaanadaydu fahiima kuwaanu shalay isdilay ee dhibaatada noo geystay nabad baanu la doonaynaa nabad baanu ka doonaynaa mudane madaxweyne dhabarkaaga waxa fadhiya guddigii wada hadallada nabadda ee uu hogaaminayay saaxiibkay Salaaman Cabdi Ducaali hadda iyo ka horow iyo wixii hadda ka dambeeyaba nabadgelyaanu u taagannahay nabadgelyaanu doonaynaa cidna duulaan kuma ahin laba arrimood laakiinse ma aqbalayno mana yeeli karaan kow in dhulkayaga la soo hungureeyo iyadoo ujeeddo khaldan laga leeyahay reer waqooyi bari iyo bulshada Soomaaliyeed ma ogolaan doonaan qodobka labaad ee aan aqbalayno waxa weeye in qarankan iyo dawladnimadan iyo dhulkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina makansiiyay la qaybiyo oo la googooyo ma ogolaan doonaan madaxweyne muuqaalkii shirka lagu bilaabay waxa ku jiray gabay uu tiriyay nin abwaana oo reer waqooyi bari bidda farax gaas baa loo dhan jiray wuxuu yiri dadka kale doraatiya shalay dhagaxa tuureen aan si calanka toomoone waa taharahaygi tobanaan kun oo tabaadiya ay ga maqan si lagu heli lahaa
يعني أبوان كاس هير وقوي بري وحشيجي إن عالم كان كمانان هير وقوي بري هاي وصور دنتين وصور قد قلين هدي شلي أو يا شيء أي أبررن ومدن صوماليات دل كذي يدد كذا إن الإلاليو هير وقوي بري مان تنول وأي قرب تاجين يهين ولا له صوماليات أو اسكت دوبان waxay diyaar u yihiin in marka la ilaaliyo in dalakan iyo dadakan wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala makansiiyay aan gacmahooda laga saarin mudana madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ka mahad celinayaa safarka qiimaha leh ee adag ee aad u soo gasheen inaad soo gaadhaan laascaanood in laascaanood la soo gaadhaa reer waqooyi bari oo maanta halkan shirkan la isugu yimaado oo madaxdii qaranka oo dham ay isugu timaado reer waqooyi bari waxay uga dhigan tahay xorriyad mar kale ka hirgashay geeyiga Soomaaliyeed oo dhan waxay ku soo beegmaysaa xilli la isu soo bahaystay dadkan iyo dalkan dhibaatayntiisa waxay ku soo beegmaysaa xilli cadawgii Soomaaliyeed iyo xabibkii Soomaaliyeed kala baxeen waxay ku soo beegmaysaa xilli bulshada Soomaaliyeed iyo dawladooduba ay diyaar u yihiin oo ku filan yihiin in dalkan markale la difaaco hadii la yiraahdo mudana madaxweyne waxaan ugu dambeyntii hadalkay ku soo koobaya xaflado fara badan iyo calaamasaar fara badan oo Soomaaliyeed baa la qabtay xafladan iyo calaamasaarkan waxaan u hibaynaynaa qaranka Soomaaliyeed iyo midnimadiisa in la ilaaliyo waxaan u hibaynaynaa kumanaankii Soomaaliyeed ee hadafkan in la xaqiijiyo u godgalay waxaan u hibaynaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee midnimada jecel ee laga hortaagan yahay oo aanu leenahay shalay waana la ka hortaagnaa maanta la idinka hortaagan yahayna berri baa xigta oo aad midnimada iyo Soomaalida gaari doontaan reer awdal iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo ayna deeqda qarannimo ayna deeqda Soomaalinimo ayna deeqda ma jirto cid xaq u leh inay is hortaagto Soomaalinimada qof Soomaaliyeed ma jirto cid xaq u leh inay ka hortagto wada jirka dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed horaan uga hadlay sheeka baraleyda lagu dhisayo khiyaaliga dawladda aan jirin iyo taariikhda beenta la abuurayo ku noqon maayo hadii la yiraahdo mar kale waa u mahad celinayaa soo qaybgalayaasha oo dhan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr aad baad mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo guul baan Soomaaliya u rajaynayaa waxaan markan codbaahiyaha uga yeerayaa oo ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraheena ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Sayid Xamse Cabdi Barre si uu kelmadiisa ugu jeediyo